Mara wuxuu iibsaday tikidhka heerka koowaad First Class isagoo adeegsanaya lacagtii uu muddo soo kaydsanayay. Ujeedadiisu waxay ahayd oo keliya inuu la kulmo oo heshiis la galo sodonkiisa Paresh Goswami oo ah nin taajir ah. Laakiin markii uu salaamay Paresh, wuxuu bilaabayaa inuu muujiyo isla weyni iyo nacayb, isagoo iska nadiifinaya gacmihiisa, isagoo u arkayay Mara inuu yahay qof wasakh ah ama ka hooseeya. Paresh wuxuu ku amrayaa ilaaladiisa inay Mara u kaxeeyaan qaybta dambe ee diyaaradda, isagoo u diiday inuu la fadhiisto qaybta raaxada. Mara aad ayuu u xanaaqayaa, wuxuuna dhahayaa, waxaan iibsaday tikidhka kuraasta qaaliga ah, xaqna waxaan u leeyahay halkaa inaan fadhiyo. Laakiin Mara muusan ogeyn awoodda lacagta ay leedahay. Paresh kaliya wuxuu la hadlayaa shaqaalaha diyaaradda, isagoo adeegsanaya saameyntiisa taajirnimada. Natiijadu waxay noqotay in diyaaradda oo dhan dib loo soo celiyay si Mara loogu dejiyo. Mara waxa uu diyaaradda ka degayaa isagoo aad u dareemaya bahdilaad weyn. Kadibna diyaaradda way ka tegaysaa, laakiin Paresh kuma xisaabtamin in ninkan masaakiinka ah uu maanta yasay uu mustaqbalka dhow noqon doono qofka ugu loolanka adag ee suuqa diyaaradaha kaga hor yimaada. Tani waa qiso dhab ah. Daawada haddii aad muuqaalka weli laag inoo saarin, waxaan ka codsanayaa inaad laag ii saarto. Mara waxaa garoonka ku joojinaya oday timo cad oo diyaaradda saarnaa. Odaygu wuxuu arkayay dhibaatadii ku dhacday Mara, wuxuuna dareemay in Mara uu yahay nin leh aragti fog. Odaygu wuxuu maqlayaa in Mara uu rabo inuu aas-aaso shirkad diyaaradeed oo raqiis ah. Xaqiiqaduna waxay tahay in boqolkiiba 90 dadka Hindiya aysan awoodin inay raacaan diyaaradaha qaaliga ah. Sidaas darteed, shirkad raqiis ah waxay noqonaysaa fursad dahab ah oo ganacsi oo dalka dhan laga sugayo. Si kasta ha ahaatee, iibsashada diyaarad ma aha wax fudud. Waxay u baahan tahay lacag aad u badan iyo xog sugan. Mara si uu u tuso odayga maalgashadaha in tayada iyo qiimaha la kala saari karo, wuxuu geynayaa maqaayad yar oo cuntada laga iibsado, wuxuuna u dalbayaa biisa. Markii hore, odayga maalgashadaha ahaa wuxuu u arkayay biisada mid hooseysa, isagoo ku qiimeynaya goobta. Laakiin markii uu dhadhamiyey, wuxuu la yaabay macaankeeda, wuxuuna xaqiiqsaday in dhadhanka biisadan caadiga ah uu la mid yahay mid laga helo hoteelada qaaliga ah sida 5-star hotel camal. Mara wuxuu halkan ku barayaa odayga cashar ganacsi oo weyn. Wuxuu u sharxayaa farqiga keliya ee u dhexeeya meel qaali ah iyo mid raqiis ah uu yahay quruxda goobta, laakiin cuntada ay isku mid tahay. Sidoo kale, diyaaradaha haddii laga saaro qaybaha raaxada business cabin-ka laguna bedelo kuraas badan si dad badan loo qaado, lacagtana loo raqiisiyo, faa'iidada way badanaysaa. Ujeedada dhabta ah ee diyaaradda in meel laga qaado meel lagu geeyo ay dadka oo dhan heli karaan haddii nidaamka la bedelo. Odaygii wuxuu rumaystay in Mara uu yahay qof aqli badan oo hami leh, wuxuuna geynayaa shirkadiisa si uu u horgeeyo guddiga agaasinka iyo saamileyda. Waxay bilaabayaan inay sameeyaan qiimeyn si ay u arkaan inay mashruucan lacag ku bixin karaan iyo in kale. Saamileyda shirkadda si wadajir ah ayay u diidayaan mashruuca. Waxay ka baqayeen in lacagta tirada badan ee diyaaradda lagu iibinayo iyo laga yaabo in dowladda aysan ogolaan qaabkan cusub ee diyaaradaha raqiiska ah. Mara markii uu maqlay diidmada saamileyda ma quusan, wuxuu soo bandhigayaa qaab kale oo cusub, wuxuuna ku dhahayaa haddii aynan awoodin inaan iibsano diyaarad, waxaynu ka soo kiraysan karnaa dalka Mareykanka. Tani waxay dhalisay fursad kale oo weyn, maadaama Mareykanku uu markaas ku jiray xaalad dhaqaale ee dhinaca diyaaradaha ah. Maadaama qorshaha Mara uu ahaa mid aqligal ah, kiraysiga diyaaradaha saamileyda shirkadda way ku raacayaan fikirkiisa. Inkastoo fikirka Mara lagu raacay, balse guddigu waxay ku dhahayaan qorshahan hadda lacag kuma bixin karno, laakiin haddii adiga aad soo saarto garab waan ku siin karnaa. Barakash wuxuu Mara ku cadaadiyey inuu isaga jaabkiisa ka bixiyo kirada hordhaca si loo xajiyo diyaaradaha, maadaama lacagta shirkaddu ay dib u dhacayso. Mara wuxuu damaanad dhigayaa gurigiisa iyo dhulka beerta ee uu lahaa. Xitaa markii uu hantidiisa oo dhan isugu geeyay, waxaa ka dhinaanaysa $40,500. Mara wuxuu u tegayaa ninka ugu taajirsan tuuladiisa si uu deyn u weydiisto. Ninkii taajirka ah wuu la yaabayaa markii uu maqlay Mara inuu rabo inuu diyaarad iibsado, balse wuu ka aqbalayaa markii uu Mara u ballan qaado faa'iido boqolkiiba 30 ah. Waxaan ogaanaynaa in ninka taajirka ah uu ahaan jiray arday ka agdhowaa Mara, taasoo ahayd sababta uu codsigiisa u aqbalay. Kadib wuxuu tegayaa xafiiska duulista rayidka si uu u helo rukhsadda duulimaadka. Agaasimaha xafiiska ayaana diidaya xataa inuu la kulmo Mara, wuxuuna soo noqnoqonayaa 12 maalmood. Kadib maalinta xigta, agaasimaha ayaa meesha soo maraya. Markuu weydiistay inuu la hadlana, wuxuu ku dhahayaa mar kale ii soo noqo. Laakiin markuu imaaday, waxaa loo sheegay in 7 fasax uu ku maqnaan doono. Rajadiisii gubaysay hal mar ayay burburtay, wuxuuna fadhiisanayaa bustaajada tareenka halkaasoo dadku ku badan yihiin. Buuqa agaarkiisa ka jiray waxay la ahayd sidii isagoo dadkaas dhammi ay ku qoslayaan riyadiisa fashilantay iyo siduu iskugu dayay wax ka weyn awooddiisa. Kadib wuxuu maqlayaa ogeysiis qof tikidhkiisa dhacsan yahay oo tareenka laga reebay. Markii Mara hadalkaasi maqlay, wuxuu si lama filaan ah ugu soo toosayaa fikirkii iyo riyadii uu ku jiray, wuxuuna xaqiiqsanayaa haddii uu go'aankiisa uu ka laabto inay guuldaro ugu dhigan tahay. Jaaniskan uu mar dambe uu soo mari doonin, maadaama jidkii caadiga ah ee guusha laga soo xiray. Wuxuu go'aansaday inuu isagu waddo kale oo gaar ah uu furto, uusan cidna sugin, wuxuuna raadin
raadinayaa haweeney wariye oo is-yaqaaneen wuxuuna ka codsanayaa inay madaxweynaha la kulansiiso. Codsigiisa way ka aqbalaysaa waxayna xafiiska galayaan isagoo iska dhigaya wariye, wuxuuna watay ID faag ah. Ilaaliyaasha ayaa fahmaya waxayna isku dayayaan inay xoog ugu saaraan xafiiska, balse wuu qaylinayaa isagoo dhahaya arrin muhiim ayaan u wadaa madaxweynaha, fadlan ii geeya. Kadib madaxweynaha ayaa maqlaya qayladiisa, wuxuuna dhahayaa ii soo fasaxa. Kadib Mara madaxweynaha wuxuu ugu sheekaynayaa sababta ku kaliftay inuu abuuro shirkad duulimaad oo raqiis ah. Wuxuuna ku dhahayaa waxaan ku jiray tababar ciidamada cirka, maalin waxaa soo wacaysa hooyadiisa oo ooynaysa, waxayna u sheegaysaa in aabihiisa sakaraadaya, waxayna ka codsanaysaa inuu guriga dhaqsi ugu soo laabto. Kadib wuxuu u soo ordayaa dhanka garoonka, balse garoonka dhibaato ayaa ku qabsanaysa. Xilligaas kuraasta caadiga ah dhammaan waa la gatay tikidhadooda, waxaana harsanaa oo keliya kuraasta qaaliga ee businesska. Laakiin Mara ma haysan lacag ku filan oo ku iibsado tikidhka kuraasta qaaliga ah ee ganacsatada, mana rabin inuu ka haro diyaaradda sababtoo ah aabihii ayaa sariir saarnaa. Kadib wuxuu bilaabayaa dadka garoonka inuu lacag weydiistay isagoo baryaya, wayna iska indhatirayaan. Ugu dambeyn waxaa garoonka bannaanka ugu saaraya ciidamada ammaanka garoonka. Waddo kale ma haysan, wuxuuna raacayaa bas muddo u soconaya tuuladiisa, wuxuuna tegayaa aabihiisa oo geeriyooday. Mara hooyadiis aad ayay u niyad-jabsaneed sababtoo ah Mara wuu ka soo daahay geerida aabihii oo keligii dhalay. Mara hooyadiis waxay ku daadinaysaa warqadihii aabihiisa u qoray siduu ugu faani jiray iyo siduu u jeclaa wiilkiisa. Erey walba warqadahaas ku qornaa waxay ahaayeen kuwo gubayay qalbigiisa. Kadib madaxweynaha sheekada Mara markuu dhegeysto warqadda oggolaanshaha ayuu u saxiixayaa, laakiin Mara markay wax walba u hagaageen oo warqaddii u xayirnaa uu helay, waxaa loo sheegayaa in dalka Mareykanka uu baajiyay dhammaan dalabaadka diyaaradaha ee Mara iyo kooxdiisay sugayeen, taasoo sabab u ahayd in xafiiska duulimaadka rayidka ee Hindiya ka codsaday inay u baahan yihiin naqshado cusub, midaasoo waqti qaadanaysa qiimaheedana sii kordhaya. Mara aad ayuu ugu naxay caqabadan kale ee soo wajahday, wuxuuna isweydiinayaa cidda ka dambaysa qorshahan. Isagoo naxsan ayuu aadayaa maalgashadihiisa Barkash si uu caawinaad u weydiisto, wuxuuna moodayay in Barkash uu yahay qof isaga garab taagan, balse wuxuu ogaanayaa inuu qayb ka yahay dadka doonaya inay fashiliyaan. Wuxuuna u sheegayaa inuu u shaqeeyo Baresh, uuna isaga ka dambeeyay inuu garab siiyo. Ujeedadiisuna waxay ahayd inuu Mara gacanta ku hayo si uu shirkadiisa ula tartamin. Sidaa darteed ayuu u soo adeegsaday Barkash si Mara qorshihiisa loo isticmaalo kadibna niyadda loogu jibiyo. Mara mashruuciisa halkaas ayuu ku fashilmay, waxaana lagu yeelanayaa deen aad u badan. wuxuuna gurigu ku laabtay isagoo dareemaya guuldaro iyo dhaqaale burbur. Isagoo xaaladaasi ku jira ayaa maalinka xigay wuxuu arkayaa shimbirtaas ayaa siisay aragti cusub iyo dhiirigelin bedeshay qorshihiisa hore. Wuxuuna ogaanayaa laba shay oo muhiim ah: shimbiraha aad uma duulaan, haddana meel kasta way gaarayaan. Cunto badanna uma baahna si ay u duulaan. Wuxuu gartay inuusan u baahnayn diyaaradaha waaweyn ee qaaliga ah. Wuxuu go'aansanayaa inuu isticmaalo diyaaradaha yaryar ee xamuulka ah uuna u bedelo kuwo rakaab ah, maadaama diyaaradahan yaryar ay yihiin kuwo ku degi kara magaalooyinka yaryar. Tikidhadooduna uu noqonaya mid aad u raqiis ah, shidaal badanna ma cunayaan. Wuxuu degdeg ula xiriirayaa shirkad shisheeye oo samaysa diyaaradaha xamuulka, wuxuuna ka codsanayaa inay diyaaradaha xamuulka ugu bedelaan mid rakaabka qaada, maadaama diyaaradahan yaryar aysan u duuli karin masaafo aad u fog. Wuxuu qorsheeyay inuu ka dhex shaqeeyo magaalooyinka iyo tuulooyinka yaryar ee isku dhow. Maalaa inkastoo qorshaha uu diyaariyey, laakiin lacag ku filan ma haysan. Wuxuuna mar kale ka codsanayaa dadka tuulada inay maalgeliyaan. Dadka tuulada waxay hantidooda dhan u hurayaan riyada Mara. Waxay rumaysan yihiin haddii shirkadda diyaaradaha ee Mara ay furanto ay wax ka bedeli doonto noloshooda, uuna u furi doono fursado cusub ee adduunka kula xiriiraan. Maadaama dhisida garoon diyaaradeed cusub ku baxaya qarash qaali ah, Mara wuxuu helay hab ka sahlan. Wuxuuna raadiyey garoomadii duugga ahaa ee ka tageen gumaystihii Ingiriiska. Dariiqyadan runways ee hore waxa ay ku yaaleen meelo miyi ah ama magaalooyinka yaryar, waxaana loo isticmaali jiray dagaalkii labaad ee adduunka, laakiin hadda waa laga tegey. Mara wuxuu go'aansaday inuu kuwan dib u isticmaalo si uu qarashka u yareeyo. Kadib markii dib u habeen lagu sameeyey diyaaradihii yaraa ee xamuulka, wuxuu ku guulaystay inuu hoos u dhigo qarashka si ay u noqdaan kuwo aad u raqiis ah. Sidoo kale Mara waxaa garab siinaya saaxiibkiisa si ay u horumariyaan nidaamka lagu iibsado tikidhada internetka. Dhinaca kale, shirkadda ka soo horjeeda waxay ka hor istaagaysaa inuu helo duuliyaal u shaqeeyo. Kadib waxay shaqaalaysiinayaan duuliyayaashii joogay magaalada si uusan u helin qof duuliya diyaaradiisa. Kadib Mara wuxuu ka codsanayaa duuliyayaashii ciidamada cirka ee howlgabka noqday ee saaxiibadiisa ahaa inay la shaqeeyaan, wayna aqbalayaan. Sidaas darteed Mara wuxuu si guul ah u aasaasay shirkadda diyaaradaha ee Deccan Airlines. Ugu dambeyntii, duulimaadkii ugu horreeyay ee tijaabada ayay bilaabaysaa diyaaradiisa, laakiin ma uusan filaynin inuu shil ama dhibaato weyn dhici doonto. Markii ay diyaaraddu rabtay inay
inay degto taawarka xiriirka garoonka ayaa si lama filaan ah ugu mamnuucay inay soo degaan. Tani waxay ahayd shirqool uu ka dambeeyey British. Shidaalkii diyaaradda ayaa qarka u saarnaa inuu dhammaado. Mara wuxuu amray in diyaaradda lagu dejiyo garoon u dhow saldhigga ciidanka cirka maadaama aan garoonkaas loo ogolaan in diyaaradda ay ka soo degto iyadoo aan fasax haysan. Mara waxaa xiray ciidamada cirka. Nasiib wanaag labadii duuliye waxaa soo gaaray dhaawacyo fudud oo keliya. Kadib waxaa la horgeynayaa sargaalka maamul xeradaas. Mara wuxuu u sharxayaa sargaalka wixii dhacay iyo sababta keentay inay halkaas ku degaan iyo shirqoolkii loo maleegay ee ka hor istaagay inay ku degaan garoonka kale. Sargaalka waxaa taabtay geesinimadooda wuxuuna ogaaday dhibka lagu hayo dadka hanka leh. Kadib wuxuu ku amrayaa inay bixiyaan ganax lacageed oo gaaraya $1,000 wuuna sii deynayaa. Mara wuxuu aadayaa kulan uu la lahaa wasiirka cusub ee duulista. Isagoo halkaas jooga ayuu si lama filaan ah ula kulmayaa ninkii taajirka ahaa. Mara markaan codkiisa hoos uma dhigin mana uusan isticmaalin hadal jilicsan oo baryo ku jirta, balse wuxuu muujiyey dabeecad kalsooni iyo geesinimo ka muuqata. Isagoo ninka taajirka ah ku jeesjeesaya ayuu si adag ugu jawaabaya. Mareesh ayaa isku dayay inuu hadalka ka joojiyey isagoo leh sug daqiiqad Master Mara, balse Mara wuu iska indhatirayaa wuxuuna ku dhahayaa iga raali ahow ballan ayaan leeyahay. Kadib Mara wuxuu la kulmayaa wasiirka duulista wuxuuna u sharxayaa qorshihiisa ganacsi. Wasiirku wuu ku taageerayaa nidaamka cusub ee uu la imaaday wuxuuna Mara ka caawinayaa xalinta dhibaatadii garoonka diyaaradaha. Xitaa wasiirka wuxuu ku dhahayaa waxaan diyaar u ahay inaan raaco safarka ugu horeeya ee diyaaraddaada. Kadib waxaan arkaynaa cirka oo qurux badan. Rakaab faraxsan. Duulistii ugu horeysay ee shirkadda Deccan Airlines waxay u muuqatay mid si caadi ah oo guul leh u bilaabatay. Isla markii ay diyaaraddu qarka u saarnayd inay kacdo, matoorka ayaa si lama filaan ah qiiq ugu soo baxaya. Rakaabku way argagaxayaan. Mara wuxuu u soo ordayaa qolka duuliyaha wuxuuna u sheegayaa kabtanka inuu joojiyo kicitaanka diyaaradda, laakiin kabtanka wuxuu u dhaqmayay sidii qof waalan oo isku dhex yaacay kaasoo awoodi waayay inuu diyaaradda joojiyo. Mara waxaa qasab ku noqotay inuu isaga shakhsiyan kursiga kabtanka u fadhiisto si uu u joojiyo diyaaradda, waxayna ku istaagtay si shil ah. Shilkaas dhacay wuxuu aad u cadhaysiiyey wasiirka duulista. Natiijadana waxay noqotay in shirkadda Deccan Airlines laga mamnuuco inay shaqayso. Tani waxay ahayd dabarjab kale oo ku habsatay riyada Mara. Kadib waxaan arkaynaa Mara oo ku hareeraysan oo cadaadis ku hayay wariyaasha doonaya inay wax ka weydiiyaan fashalka diyaaraddiisa iyo ganaaxa wasaaradda. Isla xilligaas adag xaaskiisa oo uur leh ayaa qarka u saarnayd inay dhasho. Mara wuxuu isku dayaa inuu dhinaceeda soo aado si uu u caawiyo, balse waxay ku dhahaysaa arrimahaaga iska soo dhammayso waxaana wadaya saaxiibkiisa. Wariyaasha Mara waxay weydiinayaan diyaarad qaraab ah inuu soo gatay si qiimaha uu raqiis ugu dhigo. Mara xaaskiisa gabar ayay u dhalaysaa. Mara ma quusan wuxuuna bilaabayaa inuu baaro sababta ka dambeysay shilka diyaaradda wuxuuna ogaanayaa in lagu shubay shidaal qaldan taasoo ka dambeeyay duuliyaha diyaaradda. Mara wuxuu raadinayaa Muhammad wuxuuna weydiinayaa sababta ku kalibtay inuu sidaas sameeyo. Nasiib wanaag Muhammad qaladkiisa wuu qiranayaa wuxuuna u sheegayaa inuu ka dambeeyay British uuna siiyey lacag taasoo aad ugu baahnaa. Mara arrintaas aad ayuu ugu xanaaqayaa wuxuuna ceyrinayaa Muhammad. Kabtanka diyaaradda waxaa la horgeynayaa guddiga duulimaadka si su'aalo loo weydiiyo wuxuuna u caddaynayaa inuu isaga ka dambeeyay shilka diyaaradda ayna ahayd dayacaad xaggiisa ah. Kadib shirkadda Mara ee Deccan Airlines cunaqabataynta waa laga qaadayaa, balse kalsooni kuma qabaan dadka diyaaradda Deccan. Mara hadda wuxuu dareemayaa inay lumiyeen kalsoonida macaamiishooda. Kadib Mara wuxuu ka hadlayaa idaacadda si fariin toos ah u gaarsiiyey shacabka wuxuuna dhahayaa kuwa dalkan jooga ee dhibaataysan waa inay noqdaan kuwa guusha gaara ilaa dhammaadka. Mara wuxuu xasuusinayaa dadka taariikhda madow ee ay soo mareen. 10 sano ka hor waxay dhihi jireen awoodda annaga kaliya ayaa iska leh. 50 sano ka hor waxay dhihi jireen gaarigan annaga kaliya ayaa iska leh. Waxay hadalladan u lahaayeen si ay dadka caadiga u dareensiiyeen inaysan waxba u qalmin. Waxay rabeen inay iyaga kaliya ahaadaan dadka dunidan xukuma ee leh teknoolajiyadda iyo hantida. Mara wuxuu rabay inuu tuso dadka in guusha ay tahay mid qof walba u furan aysan ahayn hanti dad gaar ah u xiran. Mara wuxuu rajaynayay inuu dib u soo celiyo kalsoonidii dadka, laakiin odaygii ka soo horjeeday ma seexan. British ayaa TV-ga ka soo muuqday isagoo sumcad dil ku sameynaya Mara iyo shirkadiisa wuxuuna dadku u sheegayaa in diyaaradaha qiimaha jaban aysan ahayn kuwo tayo leh oo aysan marnaba damaanad qaadi karin nolosha rakaabka. Kadib markii la sameeyey dhammaan baaritaanadii ugu dambeeyay ee badqabka diyaaraddiisa, Mara si uu u tuso dadka in diyaaraddiisa ammaan tahay wuxuu saarayaa xaaskiisii iyo gabadhiisii yar ee hadda dhalatay. Wuxuu rabaa inuu tuso dadweynaha in haddii uu naftiisa iyo qoyskiisa ku aaminayo diyaaradda ay iyaguna ku aamini karaan naftooda. Mara wuxuu si weyn u sugayay inuu arko rakaabka oo soo qulqulaya wuxuuna rajaynayay inay dhiirigelin ka helaan qoyskiisa oo saaran diyaaradda, laakiin nasiib daro cidna ma imaan. Diyaaraddii weyneed waxaa dhex fadhiyay oo keliya qoyskiisa. Garoonkuna wuxuu ahaa cidlo. Shaqadiisa oo dhanna waxay u muuqatay mid fashilantay. Isagoo qalbi jabsan ayuu xaaskiisii iyo gabadhiisa ka soo dejinayaa diyaaradda. Indhihiisa waxaa ka muuqatay ciil iyo niyadjab weyn waayo wuxuu wax walba u sameeyey si uu dadkiisa u caawiyo, laakiin cabsidii ay cadowgiisu ku beereen ayaa ka xoog badatay.
noqotay runtiisa. Mara wuxuu soo maray guuldarooyin aan tiro lahayn, laakiin markaan xaaladdu way ka duwan tahay, wuxuuna dareemay garab la'aan, isagoo garan lahaa meel uu wax ka bilaabo ama siduu u haysan lahaa riyadiisii oo sii dhimanaysa. Indhihiisa ma aysan xajisan karin ilmada qaraar ee ka tarjumaysa xanuunkii iyo dadaalkiisa dhumay. Laakiin xilli uu quus jooga ayaa kaaliyihiisa u soo ordaya, isagoo siday war aan la rumaysan karin, wuxuuna u sheegayaa sababta dadku u imaan waayeen inaysan ahayn cabsi balse ay jirtay xeelad farsamo oo ku timid nidaamkii tikidhada laga iibsanayay. Dadkii rabeen inay raacaan diyaaradda ayaa waayay meel ay tikidhada ka goostaan. Xaqiiqaduna waxay ahayd in shirkaddu ay iibisay kumanaan tigidh, inkastoo ay shirkado kale oo waaweyn ay buuxeen, dadkuna ay shaki qabeen markii hore. Haddana rabitaankooda duulimaadka ayaa ka xoog batay dacayaddii British, waxayna dhab ahaantii doonayeen inay raacaan Deccan Airlines. Mara isagoo faraxsan oo naxdin iyo reereen ka muuqata ayuu u ordayaa dhanka ay diyaaraduhu ka soo degayeen. Indhihiisa waxay qabteen muuqaalkii uu nolosha ku riyoonayay, dadkii tuuladiisa oo diyaaradda ka soo degayo, wejiyadoodana ka muuqato dhoolla cadeen iyo farxad. Markii ugu horeysay riyadiisa ahayd in dadka si siman diyaarad ugu safri karaan waxay noqotay mid dhab ah. Dadkii tuulada ee diyaaradda ka soo degayay waxay Mara ugu mahadcelinayaan fursadda uu siiyey. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee noloshooda ay daruuraha dhex maraan, riyadaasna isaga ayaa u rumeeyey. Mara wuxuu ugu dambeyntii la kulmayaa hooyadiisa oo ka soo degtay diyaaradda. Waxay ahayd daqiiqad dareen leh. Hooyadiisa oo marka hore ka shakisaneed riyadiisa ayaa hadda si weyn ugu hambaliyeysay wiilkeeda. Jacaylkii iyo isfahankii ka dhexeeyay ayaa dib u soo laabtay, wuxuuna markaasi ogaanayaa in dadaalkiisa uusan khasaarin. Markii uu arkay guushan weyn, ninkii taajirka ee horay u yasi jiray ayaa soo wacaya Mara, wuxuuna rabaa inuu hadda la shaqeeyo maadaama uu arkay in Mara aan la joojin karin. Laakiin Mara oo hadda awood leh, kalsooni badan la qaba, ayaa si toos ah u burinaya, isagoona u sheegaya inuusan hadda u baahnayn wax caawin ah. Filimkana wuxuu ku dhammaanayaa Mara oo guulaystay, shirkadiisa Deccan Airlines ay noqotay mid caan ah oo dadka oo dhan u furan. Geesinimada iyo samirka ayaana ka adkaaday lacagta iyo kibirka.